بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan muuqaalkan kaga hadlo mowduuc aad u muhiimsan aadna u ballaaran oo bulshada saameyn aan fiicnayn ku yeelan kara haddii uu meesha ka baxo. dabcan marar badan ayaad maqashay mowduucan iyada oo lagaga hadlayo meelahaas, balse miisaanka uu ku fadhiyo ayaa aad u weyn una baahan inaan mar waliba isku baraarujinno. waxaan kaga hadli doonaa insha Allah nadaafadda iyo xaqiiqooyin qadhaadh oo ku saabsan bulshadeena Soomaaliyeed. nadaafaddu waa uskag iyo wasakh la'aan, yacni waa qof ama shay ama meel ka maran wax wasakh ah. nadaafaddu waa habdhaqan ay tahay inuu qofku ku noolaado inta uu nool yahay oo dhan. nadaafaddu waa arrin lama huraan ah, mar walba waxa ay saamaysaa xiriirka uu qofku la leeyahay bulshadiisa. haddaba nadaafadda waxaan u kala saari karaa ama kala qaybin karaa laba qaybood: nadaafadda qofka iyo midda caam ahaaneed ama deegaan ahaaneed. nadaafadda shakhsi ahaaneed ama qofka waxaa ka mid ah qubaysiga ama maydhashada, nadiifinta dharka, maydhada gacmaha sida joogtada oo loola socdo, iyada oo ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee looga fogaan karo faafidda cudurrada faafa. isticmaalka musqusha iyo daryeelka cidiyaha. cidiyaha ayaa laga yaabaa inay xambaarsan yihiin wasakh iyo jeermis, taasoo gacan ka geysanaysa faafidda bakteeriyada. fiiro gaar ah way u fududahay wasakhda iyo jeermisku inay ku ururaan cidiyaha dhaadheer hoostooda. sidaas darteed in mar waliba la iska gaabiyo cidiyaha waxa ay ka caawin kartaa yareynta halista cudurrada faafa. haddaba ujeedka ugu weyn ee aan u sameeyey muuqaalkan ama aan u soo gudbinayo fariintan maaha keliya nadaafadda qofka, waayo bulshadana Soomaaliyeed aad ayay ugu fiican yihiin ama ugu dadaalaan nadaafadda shakhsiga. qof kasta waa uu nuuraya, oogadiisana uma ogola wax wasakh ah. maxaa yeelay hooyooyinka Soomaaliyeed waxa ay bilowga horeba inagu tababaraan noocyada kala duwan ee ay leedahay nadaafaddu. nadaafadda deegaanka ama nadaafadda guud waa mid mujtamaca u leh muhiimad aad u weyn oo aan la soo koobi karin. nadaafadan aan hadda ka tilmaamnay ee deegaanka runtii bulshadeenu aad ayay ugu liidataa, waana xaqiiqo qadhaadh oo aynan marnaba iska indhatiri karin. haddii aad marto waddadu miday doontaba ha noqotee, mid laami ah ama mid aan ahayn laami, haba sii kala darnaadaane, waxaad arkaysaa dayaca ka muuqda dhinaca nadaafadda iyo sida aynaan u danaynayn danta guud ee ummadda ka dhaxaysa. ma lihin biyo-mareenno sax ah, khashinka ayaa meel kasta buuxa iyada oo bulshadu aanay ku baraarugsanayn cudurrada sida dhibta yar uga dhalan kara. cuntooyinka inaga hadha ayaad arkaysaa iyada oo lagu qubayo meel aan ku habboonayn. waxaad arkaysaa biyo wasakh ah oo lagu shubayo meel waddo ah. dhammaan waxyaalaha si aan tilmaannay waa caqabadaha ka dhex jira bulshadeenna ee aan la iska indhatiri karin. ugu dambayn, cid kasta oo ay maqlaysaa, waxaan odhan lahaa bulshooyinka caalamku waxa ay leeyihiin xeerar ay ka dhigteen qofkii ku xadgudba deegaanka nadaafaddiisa, balse innagu maynaan danaynin. markaasuu geyigeennina dayacmay. aynu yeelanno wadal jacayl dhanka kale, sida aynu u ilaalinno nadaafadeenna qof ahaaneed iyo qoys ahaaneedba aynu u ilaalinno ka deegaankeenna. sidaasi ayaynu kula tartami karnaa bulshooyinka caalamka. waad mahadsantihiin.